بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محله waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed halkan salaan uga soo jeediyo waxaan u mahad celinayaa mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyay in ka badan muddo 50 sano ah xilal kala duwan oo soo qabtay. mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badanna dawladnimada Soomaaliyeed waqti aad u farbadan galiyay go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruud oo ku xiran ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyay dawladnimada Soomaaliyeed gaar ahaan qabiilka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo jeedintiisa Abdullaahi Rahman waxa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed oo ah dawlad wanaag adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino inaan si wada jir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaalaan hawlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka waxaan kale oo aan halkan aan ku raadaan ka aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dawladda waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dawladda ayna la shaqeeyaan hay'adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka dawlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqeyn karto waxaana ku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan haddii Ilaahay yiraahdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.